Soomaaliya ayaa juhdi badan ku bixinaysa inay dunidu ka faa'iideysato ilaha maalgashi ee sida dabiiciga ah loogu manaystay waxayna wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaaluhu qaaday dhowr tilaabo oo ku wajahan sidii dalkeenu u heli lahaa maalgashi caalami ah unkida xafiiska dhiirigelinta maalgashiga qaranka oo shaqadiisu tahay soo bandhigidda ilaha maalgashi ee dalka ka jira ayaa ka mid ah dadaalada wasaaraddu ugu jirto gaaridda himilada ah inay Soomaaliya caalamka ka faa'iideysato wasiirka ka tirsan xukuumadda Soomaaliya ayaa Muqdisho uga qayb galay daafurka website xafiiskani ku soo bandhigi doono fursadaha maalgashi ee Soomaaliya ka jira Cabdiqafaar Axmed Shire oo ka tirsan howlwadeenada xafiiskan ayaa sharaxaya qaabka qof waliba oo daneynaya fursadaha maalgashi ee Soomaaliya ugala socon karo website-kan website-ka SomInvest waa website-ka xafiiska dhiirigelinta maalgashiga qaranka oo markaas lagu ururiyo xogaha ku aadan maalgashiga dalkeena qofkii jeclaan lahaa inuu eego waxa uu booqan karaa boggeena website-ka oo ciwaankiisu uu yahay www.sominvest.mob.gov.so markii uu halkaas booqdo wuxuu arkayaa haddii uu yahay maalgashade iyo haddii uu yahay qof caadi oo jeclaan lahaa inuu xog badan ku ogaado maalgashiga waddankeena xogaha ku saabsan dalka marka koowaad wuxuu ogaan karaa xafiiskeena waxa uu yahay iyo waxa uu qabto sidoo kale waxa uu ogaan karaa wada tashiyadii uu xafiiska dhiirigelinta maalgashiga qaranka ka sameeyay arrimaha maalgashiga dalka consultationskii oo dhan iyo maaragtay wada xaajoodiyadii lala yeeshay hay'adaha dawladda federaalka maamul goboleedyada private sector-ku ay hogaaminaysay rugta ganacsiga iyo warshadaha dalka sidoo kale waxa ku jira 10ka investment sector ee ay Soomaaliya isla qorshaysatay markii wada tashiyada aan sameynay in diiradda la saaro Marwa Fahmo Axmed Nuur wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya ayaa ka hadashay qorshaha wasaaradda ee maalgashiga dalka wasaaradda qorsheynta waxay caawada furaysaa website ganacsatada ama maalgashiyaasha dunida ay ka arki karaan markay rabaan inay Soomaaliya imaadaan iyagoo macluumaad buuxa haysta marka ma sha Allah oo ku faraxsanahay talaabo hore loo qaaday waay Sadiq Xirsi warfaa wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada xukuumadda Soomaaliya oo madashan goobjoog ka ahaa ayaa ka hadlay ka wasaarad ahaan sida ay muhiimka ugu tahay in uu dalku helo maalgashi caalamiya anaga ka wasaarad ahaan wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada waxa aad noo taabanaya waxa weeye human capital-ka oo qayb ka mid ah in la hormariyo ummad ma hormarin karta deynaysan bulshadeeda aysan dhisin waana ku faraxsanahay inaan partner la wasaaradda qorsheynta 10ka hay'adood ugu waaweyn ugu horeeya dhaqaalaha sida beeraha sida kalluumaysiga sida xoolaha sida waxyaabaha kala soo saarka dawladdu leedahay iyo sida mid wasaaradda qaasaan u taabanayso ah human capital-ka oo labor-ka hadda waxaan baarlamaanka hadda waxaan mar dhow aan golaha wasiirada ka horgeyn doonaa aniga kule shakhsiyan waxa la yiraahdaa labor code-kii oo aad uga hadli doona sidii maaragtay dalkan uu ula jaan qaadi lahaa adduunyada cusub Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka Muqdisho